waayahay gabadha reer muqdishona waxay ugu baaqday dhammaan dadweynaha soomaaliyeed iyo kuwa magaalada muqdishoba inay isu soo baxaan banaanbax ay ku tusayaan ergeyga qaramada midoobay iyo ciddii soo dirsatayba inaanay soomaaliyadii hore ahayn ay tahay sovereign nation dowlad madax bannaan ciddii loo doortay inay iska leedahay siyaasadda gudaha iyo dibadda. halo asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waayahay waa magaaladee soomaaliya. هلو ما برعوي hay seex kula muuqdaan barco. waxay la muuqdaan maanta waa guul Soomaaliyeed weeye sanadkii hore inagoo wararkii farxadda lahayd faraha badan ay kasoo baxay xamar aad ugu riyaaqsanay inuu sanadkan inoogu bilaabo sidan iyo nimanka UN-ka Allah inaynu macaamilnimadii ka baxnay ma maqlaysaa si fiican. marka waxay nimankan waxay u qaadanayeen waxaanu ka tamar wahayn 7 sanado oo adduunka muddo kuseenay ma yaro Soomaaliya oo gaajoonaya ama meel abaari ka dhacday ama meel dagaal ka dhacayno isawirkiisa qaateen bay wax ku soo cunayeen inagana waxba inoo meekiinay oo soo taacad ka taanay dhiseen iskuulay dhiseen waxay sameeyeen dad ay beere ka caawiyeen ma hayno marka waxay nimankani waxay rabaan sidii inuu waddo ku soo jiro waxaana leeyahay maamul goboleed iyo xamar laguma shir karay nimankii ku shiriyay dowladda ka dhinac sameeyay colaadaha yar meelaha ka dhacaya waxaas oo isku xidhay mooshinada waxa dhacayo dhan marka dadka Soomaaliyeed ku daawanaya iyo cid walba maqli doonta waa inaynu ogaano in laynaga hortaagay noloshii aynu dowladana taageeradeeda si laga jibaarno saddex jibaarno waanu ku raacsanahay waanu ku faraxsanahay maalin farxad leh oo farxad leh sanadkuna si farxad leh noogu hortay Soomaaliyeed dhinac xalay guul marka pointi aad u muhiim ah u taabatay Soomaalida oo inta badan aniga idaacadda baan ka ilaabay waxaad leedahay nimankani markaa shirarkii Nairobi Imbagati dib u heshiisiin sawirradii agoomaha iyo dadka dayacan iyo mashaariicdii iyo lacagtii iyo harkawaatarkii Nairobi bay rabaane arrintuba farmaajo maaha dadka kale UN-ka yaqaana adigu kale nin dad farbada yaqaana waa tahay waa taqaanaa dad u shaqeeya UN-ka sida u shaqeeyaan oo ka darigsanahay xataa dadka u shaqeeya UN-ka looma ogola inay fakeraan ama in yar maskaxdooda isticmaalaan waxa weeye wax la soo dejiyey iyo system business oo totally business ku salaysan ku shaqeeya wadamada ay ka qaraabtaanna waa la yaqaanaa waxa weeye xaaladdu waa inay barteeda taagnaataa ama inay kasii xumaato iyagu saasiisa ugu jirta ninka makaaniga ah ee haysta meesha haddii gawaadhidu xumaan waayaan damaanu kacay iskiisu kacaya nimankana waxay ku shaqaystaan waddankaasi ma degena midda kale Soomaaliya waxaa loo yaqaanaa wax la yidhaha failed state waxa weeye waddan aan shaqaynan nidaam ka jirin sibaa la rabaa in laga sii dabeeyo la xaqiijiyo nimankana arkaysa markay ku dhacdaan xamar laguma shiri karo marka lagu dhacdo ama marka lagu dhacdo garaqba colaad ka dhacaysa ama hadda la leeyahay colaadahan waxaas oo dhan isku xidhay ama booshin marka la keeno waxaas oo dhan waxa la diidan yahay in la yiraahdo Soomaaliya way soo laaban kuwa marka nimanka lagu sheegay mucaarad anu kelmadda ma isticmaali karo sababta mucaarad kuwa qofka yiraahda waa in la isku hayaa sidana fiican in loo laano haddii Soomaali lahay iyo sidana fiican nidaamkana fiican iyo nidaamkana qasan laakiin si dadka ka soo horjeedaba in yaro farxad leh oo Soomaaliya ka soo yeeray oranaya waa been hadday IMF taadashadii World Bank Allah yiraahdo dhaqaale wadda ku hagaagin nimanka waa laamin kara oranaya waa been hanaamina haddii la yiraahdo cunaqabatay ku kala qaadanaha naga qaadina ee qola qaadamaysa dadkaas waa inaan loo arkin mucaarad ay waxay yihiin ugu sheego waa dambiilayaal qaran weyn dambiyada iyo waxaa kaloo fara badan oo inu garanaya dad fara badan baa jira oo kasoo macaashay oo ka taajiray waalidii 7 sano ku jiray oo burburkii Soomaaliyeed kasoo macaashay dadkaasi hadda umalin barnaamij si markii hore waxaan galay la yiraahdo macfa oo wixii hore macfa oo hadda iska dhiga laakiin hadda maadaama ay isku dayeen inay isninkii ay soo baxaa inay oodaan oo damiyaan waa inaan qof laga tegin qof walba kii magaalo meeyarka ah Soomaaliyeed ee dadka dhacay kii xoolaha ummadda dhacay kii wax musuqmaasuqay kii wax dilay kii beenta sheegay kii wadda kale la shaqeeyay qof walba shacabka Soomaaliyeed waa in awoodooda ogaadaan oo aan loogana harin meeshu damaanad jooga Soomaaliya waa inaynu ogaadnaa kulo walba iyo magaalo walba dadka inta u ah hormoodka ayaa dhacay xumeeyay Soomaalida leeyahay hal wadaado dadkii hormoodku ah hadday isku wada raacaan in dadkii la dhaco waan cid ka fikirin hooyadii meel ku baabaasaneed carruurtii reer dadweynkiisii kuwii gaajada magaalo walba oo Soomaaliyeed gaaja loogu dhimanay magaalo walba oo Soomaaliyeed caafimaad xumo loogu dhimanaya waxa weeyaan dadkii xanuunaya Roomaaliya loo wada dhimanaya waxa weeyaan shaqalaan baa ubadkii inaga dishay taariikh bay u dhamaadeen subaxdii wax maad marka dadka ka soo jeeday tooska sida bareedka ugu kacsan inay waxa soo isbedelaan aynu arkayna meel walba inoo muuqda ee waliba iyagoo indha cadeynaya toos inoo soo hortaagan wey macnaha wax la inaga arkay laakiin waxaan ku faraxsanahay maanta Soomaaliyeed inay arkaan isbedel ka dhacaya lana socdaan taageertay oo leelogana baahanay inaan si loo jibaarno saddex jibaarno taageerada dowladuna inay fahanto dowladda lafteedu way ogtahay
وصلت وحيالا أنا كمان يصير كأمد ما عملي في كذا ومدي كان في تاجر هذا الشعب كذا كسوني الشعب كذا كو قبان أي كنت قاعد كل شيء وقاعد وتاجر هذا الشعب الصومالي يليبان وعادي يعني بحاجة على الدار تنفر واحد من بلاد كمان هلي واحد منكم يصير صرت واحد وكذا كريم من أكل مش شيء كذا والله هذا ما سويت صح مياه جهة صحنا وصعنا جهة صحنا لك تروح الدنيا مين كوكرة الله واي أنا هلك كثير ويدي علمي يا قوم بكابر قريص أو طبعا قف وحوي حكمتنا كل لابنتي قلنا كل لابنتي بعد ما حاجة ما قرني طبعا أديك إنه شيء كدونا لكن إن أنا يردب ويرى النقطة هذا القاعد كنت تريد وين تلفون كسوقي أنا هي يرى على النقطة إن واحد السنة كهر يو وقتيدي هراء مقدشو وما تنقل تاجينين أو ده واحد معركة فلان قيسا مش مقولين مركب واحد لا الدولة نمط عند على ما دحدي هراء إن ساق بطي قرض الناي سبير كشطي حوارها أيها أركتد هذه برعد حديدة والله ده معناتها وحاسين يدبوا النقدان مدوني ولا بدوني دكان سماع دد سبر ما أبيالد فرح بدنا هنا قلت لكن أنا الحمد لله أنا حياتنا الحمد لله لكن مو حفر بدنا كينا أنت اللي بعطيسن إيه أنا وحن كوري هبين كي هيسن حياتك السنة تابضا تذكرتي دوي لطع على واحد عيوة أخيا وأنا أوسي وأنا أخي أنا مقلع وحويت ذكر الصوماليين مرة بعد يا بفرس اللي كانوا تبغون نقطة لا لبي كني كودي مرة البقود دولة الصوماليين الصوت تذكر تجوري الأوان يقوم ذكر فكرها أي هبين كارت مش حردي تقول ماشي دون ما تشوفه لو يعطي لا أفوز كفر معي تاي لكيس تذكر مرحلة وصلت وراني اللي ربع الشيء ماشي نوع العدالة يجا مرة بالمسكريني مومنتم عم تهاجر الشعب يجا المسكريني صوت عوضني تذكر ذيك الشيء كويا ومرة هنا واحد ويا أنا وضعكم ما كي سبعة على سفر فضل تذكر واحد جيت يقول عاوز يسوي السياسة وهذا جو وحاليا وضمان قلبك خلي تذكر بريسنتي كيربان سياسة أول حاجة تذكر فضل إنه مو واحد تذكر عين لكن تذكر ممكن يمشي في السياسة وحد منتهي waxay qof walba ishu ku haya waxa dhacay marka dadkii wixii oo dhan yarkiin waxay baa la socday hadda waxa si tabcan loogu talagalay inuu qof nadiif ka soo dhex baxo system aan loogu talagalin oo 4.5 iyo eexi qabyaalad ku dhisan oo wixii Soomaali ku burburtay baa leeyahay inoo noqdo dawaha inoo noqoto mana noqon qabyaaladu waa cod kiina dilow ayaa leeyahay dawaha laga dhigay laakiin ilaahay baa wax ka watay waxay nooga soo dhex baxay wax fiican baa system aan loogu talagalin inuu qof fiican oo daahir ka soo dhex baxo ayaa wax ka soo dhex baxay rag nadiif inoo qodana waa la soconaa marka taas waxay keenaysaa qof walba oo Soomaaliyeed oo marun ku leeyahay inuu wadkiisa hagaago uu arkaa waa taageertii dawladda inta yar baa jirto qolay oo in yar baa jirto Soomaalida oo qabyaaladu ka tabaran tahay oo qabiil iyo baasiyo laakiin dadka inta badan waa arkaa xaqana waa arkaan xaqaasna nimankana waa arkaan in la taageertay taageeradan ayaa kulmin maaya laakiin waa in la sii laba jibaaro oo dadku u sii bahlayaan oo ay demandiskooda iyo waxay doonayaan iyo wax ka maqan mid walba uu meesha joogo oo soo sheego lagana warqaad marka waxa leeyahay way diinada ka soo dhalatay xamar weeyta lagu dhalisay inaan bedelno fikirkiisa iyo araadeen iyo waxa ka aabsana iyo fikirada muuqato soo taa meelahan kale ama gobolada ha noqdo ama qodob goori ha qoto ma u sheegi karaan dadka qofku u sheegi kara dadka tabanka sano soo socda waxaan filayaa heerka nolosha inuu halka gaaro ama meesha inaad sida noqoto ama inay wax soo kordhaan ma jiro bal maanta la sheego dadka qolka qaado ku jira qolyaha ka taageersan ragga ka taageersan dadka ka daba socda qof saaqa inay ka daba socoto oo kugu taajiro oo ugu noolaado oo aad ku bahlaysto oo adiguna halkan yaaban tahay waa hadana ka taageertay wali wax shaqeynayna marka dawladda si tacaabo wada waxa khaladaadna oo ka falaynayna sameeyaan khaladaadka sameeyaan waxa weeyaan wadan inta buuxsanaawi jira ma jiro waxa weeyaan expertise waxa local experience meesha ma jiro waynu soo gaarnay Soomaaliya local experience ka ala sharix doona liibano waxa weeyaan sidii wax u hirgalaan wax walba loo qabto umad dhan oo furqatay sida dib loogu dhistay ama waxa noqoto dhaqaaleed noqoto waxbarashada noqoto caafimaadka noqoto infrastructure noqoto shaqo walba yar dadkii wasaaro qura lagama yaabo inay ma haysanaba marka wax in laga shaqeeyo u baahan oo khibrad lagu caawiyo oo dadka qurbaha joogay wax bartay inay sameeyaan inay khibradooda inta waddanka tagaan ku caawiyaan ay wasaaradaha wax ka dhisaan oo institutionada dhisaan oo dadkeena inuu si fiican dhisan 10 milyan bay nahay waxa weeyaan workforce-ka magaalada New York City workforce-ka inta ka shaqeysa ayaa Soomaaliya ku filan wax walbana wanaagsanaa laakiin waxa weeyaan inuu ka isku raacno maskaxda iyo sax khalkana inuu soo duurtiisano haduu walaalka iyo haduu aabaha iyo haduu hooyadahay wanaag iyo saxana taagan inagoo dhan aynu ogaanay in isku xilligooda maqan yihiin waxaan la haystaan inaan reer ka hormarin Soomaaliya idma kala dhaqaaqan idma kala duulayn oo isku doonayno saaranahay isku horadanahay isku dhibaatanahay taariikhda kooda dhimano jaajada wada dhimano abaaraha ayna waxba ka qaban karin walaa maamul goboleed waa cid kale
daadadku markay soo dhacaanayna wax ka qaban kara waxa la leeyahay dhibaatada soo baaleen marka dawlad xabsi lagu soo dii karo intaasoo sanaa la iska kaxay akhi ku baabaayay Ethiopia meesha rabtay inaga soo leenaysay ku leenaysay bixiyada balajij waxa weeye dal sharaf loo baahan yahay sharafteedu way soo noqonaysaa laakiin sharafteedu waxay ku taagan tahay inta ay dawladda la shaqeynayso ku taagan nimankan laba sano oo haday waqtiga oo haday hataa tii ay wax kala damacsanaan lahayn inuu meesha dad ma joogo laakiin teena waa inaan ka tashan marka waxa weeye wadankan waxaan ilaahay ka bariyaa oo rikeenaya dadkan cadaalad baa deeqa Soomaalida cadaalad darro waa la isku soo saagay inta qof ilaahay Soomaaliya cadaalad darro tirsan waxba hagaagmay inta koorka la joojiyo cadaalad iyo sinaan sida ku bisa qofkii markaa ka jira cadaalad darro doonaya inagoo dhan waxayna deeqda cadaalad bayna deeqda in qof walbaaba oo Soomaaliya qofka kale aanu ka sharaf badnayn inay hooyo walbaaba ilmeed ku korin karto hadaa jiraasho waxa ratiban qoqta madaxweynaha haata inay hooyo walbaaba ilmeed u sheegto inta iskuulka u tirto yaani ka warin absuu qabay marka waxaan doonaynaa wax isku waxba wada baahna nabad bayna deeqda cadaalad bayna deeqda waxbarashayna deeqda in cuntada la inoo soo dejinayo dhacday cudurradana la garanayo inuu dhacayo لأنه تشيء ولا نص ما يلا نجح حدده كواليتي كنترول الله سميه وحين يسوق لي إن كان عتبنا نتكلم عن جدتي أي وضعك هو شيء كفر عن تك شقاء وبورا وحرص لنا وحكورا يوم حي سياسة السم يدولة السم يدستور عدالة كل السم أفضل بنخارج سيستم أفضل بلا كوس رأي لا كوس سامي وتسمع الله قبل وتبدأ إنه يشوفون قربها أن قال سنو أن السيرة عالية وتحمرنا عن عينين الله الكلام ما هي ذكر كيف عين ما نحن نسير سمعني كوي لكن حوي واحد على هاي ذكر سيستم يشك وحوي شيء يجينا مرة حدث بهرتاج ما مقولين بهرتاجن سياسة تريتر أو خاينة بهرتاجن يوم بهرتاجن بلاي بهرتاجن لكن سوى حبوا حكا أود الشعب الدون كانوا حويا أود وين وطن الشعب كذا كان فبيتان كالشعب الكبر مكتاو كوا إنها كوا حتى ودك فرماتي خيرنا كمار مكرا اتكلم ما عينك السؤال إنه أنا نسكتنا هاي نسكتنا عنه ولا تجسون نسكتنا عنه ولا تجسون أنا قلت السلامة ونكلم إن أنا نكون بدنا واحد نوبانا هاي واحد برشة محاولة كمانية نوشيرة هنا نقول حساب تنا معها وحي أنا يجيب لاي وأنا نقول حساب تنا نوشيرة محيط كيف بدري يتبقى الناس الصلاة حكى ربعنا نكارف نوشيرة سيدي ربعنا نقطة عروض هذا لا كوي سيد أنا حكى المحارة نول عيني كنا ولا لا عبارة صنع ونقول يوم حين خديت هرتجي عيل بقول كران ما له بالحق بالله الرياء ما له هل عيل وحامة بقول شيء عيل ما يقولي يرو تكتشير متنكرة لكن مو وريد كورا وحنونا الله يجيبانه لو بقول تنكر تيجي يدخلون ولا وأنت الكورا نمنا لا تسوي وتدخل طيارة الله سميان خا وحرشير الله سمي وحاصل عنا محاكينية مركز سيستم كل شغالية عدالة كل شغالية محاسب أنا أبقى وقتي على إنه شغال هلي أما من حوينها النغض أما كاريها النغض أما كرانها النغض أما قدامها النغض قفتي فدية حديث أما لو جاء ذيك الشعب وواحد كله يتذكر من كله وأنا قفك وأبوه حبوان الشغال صوتك وشغال عليها فأنا حكمها يسمى هنا عدالة يسمى تذكر دم بيتنوج الساعة من هذا يسلسل أنا أخورا يميت كلبا وحيتنوج الساعة كبيرة وحكي قبل كرا كرتير له خبرت له كجماري كابا هرقيسة وحكي قبل كرا هرقيسة وحكي قبل كرا ما بيدا ما حكي قبل كرا فبيدا هو حق قبل كرا أيوة حق قبل كرا حنو يموت marka inagoo dhan waana isku raacnaa inuu baahnaa wada soo gudaalay waynu timaad digara la hado ku dheeraado wala digara la dibaan adigna waa wax ku raabtinayna si wada dadaalada oo ku taageersanahay si fiican wax wada waa bantiyo aad iyo aad u wanaagsan waana kugu soo xasuumeynaa idaacadda radio alcadaala markasta inaad ka soo qayb gasho do join us halkan kan waad ka soo qayb gali kartaa qaybta kamarada haddaad jeceshay falanqaynta qaarkood isaga iyo qof kasta oo aragtidiisu aad u wanaagsan tahay bantiyo iyo waxa weeye visionkii hore loogu soconayay wada waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo qaybiga la noqdaan aniga laftigeyguna waayo haddaan arko qofku inuu doonayay sheegayo oo bantiyeynayo oo cilmiga garaad ka muuqdo waxa weeyaan waa intii aynu rabnay meelaan rabay roob maygu hela marka dhammaantiinba waan idiin yeedhaya aqoon-yahanada dhalinyarada haweenka odayaasha cadalada salaadiinta qofkii garaad ku laaban yahay danta guud ka hadlaya do join us qadka telefoonka aad iyo aad baad umahadsan